waxa ay haweenweynaha reer Somaliland ugu baaqay u dirayaan baaq nabadeed bulshada ku nool gobolka Sanaag inay joojiyaan colaadda soo noqnoqonaysa. waxa ay sidoo kale haweenweynaha reer Somaliland cod dheer iyo mid gaabanba ku gaarsiinayaan dhammaan bulshada reer Somaliland inay ka qayb qaataan joojinta iyo daminta colaadda sida culimaadudiinka odayaasha dhaqanka cuqaasha dhalinyarada iyo haweenka iyo dhammaan cid kasta oo ka damqanaysa dhiigga sokeeye ee joogsan la dhammaan waxaanu leenahay ka qayb qaata sidaynu u joojinahay dhiigga walaaladeen ee soo noqnoqonaya. sida oo kale dhammaan haweenweynaha halkan maanta isugu yimid ee muujinaya dareenkooda iyo damqashada ku dheehan dhammaan dhibaatooyinka soo noqnoqday ee ka dhacaysa gobolka Sanaag gaar ahaan Ceelaf Weyn waxa ay tacsi u dirayaan cid kasta oo inagaga dhimatay dagaalada sokeeye ee naxdinta iyo huqda ku beeray haweenka iyo dhammaan bulshada reer Somaliland in ay si degdeg ah u joojiyaan. waxaanu leenahay dhammaan Ilaahay ha u naxariisto ciddii inagaga dhimatay soo noqon mayso laakiin waxaynu halkan u fadhinaa in aynu joojino cidda kale inaga dhiman doonta. waxa aynu leenahay reer Somaliland waxay caan ku yihiin isu tanaasul iyo inay xallistaan khilaafkooda dhexda ah waxaana geeska Afrika ka iibiyaan nabadda aynu ku noolaanayno. waxa aan leeyahay dhammaan haweenka reer Somaliland meel kasta oo ay joogaan waxay nagu kalifayaan in ay dumarka reer Somaliland dhammaantood iska qaadaan marada iyo huga saaran haddii aanay colaadda si degdeg ah u joojinin. ragga reer Somaliland nin kasta oo ku lug leh amba hurinaya colaadda amba wax kale ka dhex daydayo waxaanu leenahay qabrigu yaanu kugu gubanin. waxa aad maxay haytay ka qayb qaadato oo aad ka talisaa siday dadkaagaasi nabad ugu soo noqon lahaayeen. wabillahi tawfiiq waan salaamintii. haddaanu nahay haweenweynaha Somaliland ee ay hogaamiso dalada isku xidhka ee nagaad waxaanu hambalyo u diraynaa saddexda xisbi qaran ee soo afmeeray shalayto oo ay taariikhdu ahayd 27 Juulaay khilaafkii ka taagnaa doorashada. waxaan u hambalyaynaynaa dhammaan daneeyayaashii ka qayb qaatay isu soo dhaweynta saddexda xisbi si ay doorashadu xilligeedii u qabsoonto. waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo ku hawlan inay ka qayb qaataan fududaynta doorashada inay nagu soo foodle. haweenweynaha Somaliland waxay ku boorinayaan golayaasha qaranka inay ansixiyaan kootada haweenka inta ka horeysa doorashada soo socota.